xildhibaan cabdilqaadir xaaji ismaaciil jirde gudoomiyaha kumeel gaarka xisbiga mucaaridka ee wadani oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ka xisbi ahaan ay ka xun yihiin in xisbiga talada dalka ay kulmiyo ka hor dhaco natiijada kama dambaysta ah ee komishanka doorashooyinka qaranka waxaana intaasi u raaciyeen ka xisbi ahaan aanay wax rajo xumaa ka qabin natiijada doorashada madaxtooyada Soomaaliland. waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa doorashadii iyo campaignkii sida nabadgelyada noogu dhamaaday. waxaan u mahadnaqaynaa shacabweynaha Soomaaliland ee u dhabar adeegay hawsha ee si fiican oo nabadgelyo oo degan oo mugle codkooda u dhiibtay. waxaan kaloo u mahadnaqaynaa taageerayaasha xisbiga wadani ee sida mugale ugu codeeyay isbedelka. waxaan u sheegaynaa dadweynaha in axsaabta iyo komishanku ku heshiiyeen inaan natiijada laga hordhicin. waxaanu se ka xunnahay in xisbiga kulmiye uu ishambaliyey. annagu kama uruursanin in dalkan isbedel ku imanayo oo isbedel khayr qaba ku imanayo kama uruursanin. ummaduna codkeedii way dhiibatay si mugle oo miisaan la ayay ugu codeysay isbedelka. natiijadaas waxaanu la sugaynaa komishanka dhawaaqiisa. waanu ka xunnahay in dadka la hiikiciyo oo heshiiskii la wada gaaray laga baxo oo xisbi si gaar ah soo hambaleeyo. waxa kale oo ka xunnahay xogayaha guud ee xisbiga kulmiye oo si qaawan oo anshaxa ka baxsan gudoomiyaha iyo gurigiisa uga sheegay. waxaanu leenahay waxyaabaha qiimo rida processkan ku jiray tartan xalaal inuu galay. gudoomiyaha xisbiga iyo musharaxu waa madaxweynaha mustaqbalka karaamo iyo wuxuu leeyahay sharaf. marka waanu ka xunnahay anigana xaal ka bixinayaan ka rabtiga wahay ee gafka inta la galay. taageerayaasha waxaanu sheegaynaa shaki kama qabno anagu guusha ee waxaanu la sugaynaa marka lagu dhawaaqo.